madaxweyne xasan sheekh maxamuud suuragal ma u noqon doontaa mana hirgelin doonaa muddo kororsiga uu doonayo in uu ku samaysto muddo xileedkiisa sharciga ah 15 bisha May ee soo socota waxa ku eg xilliga sharciga ah ee madaxweyne xasan sheekh dastuurku uu ogol yahay in uu dalka maamulo madaxweynena ka sii ahaado haddii aan dib loo dooran xubno ka tirsan filla Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ee waqtigoodu dhamaaday ee hadda sida sharci darrada ku jooga ayaa kala shaqeynaya sidii arrintaasi u suuragali lahayd waxa iman kara qaylo culus iyo dhaqdhaqaaqyo adag oo siyaasadeed xilli caalamka uu walaac ka muujinayo marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay hadda wajahayso maalmaha soo socda Muqdisho waxa tagi doona siyaasiyiin culus oo ay ka mid yihiin madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii uu talada joogay 2 sano oo muddo kororsi ah oo baarlamaanku ay ansixiyeen meesha laga saaray iyo waliba Cabdi Saacid Shirdoon oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare isla markaana ah nin saaxiibo badan oo siyaasadeed iska leh labadan siyaasi midkood waxa la aaminsan yahay xasan sheekh in ay talada kala wareegi karaan marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan Farmaajo waa hogaamiye taageero badan oo shacbiya leh Saacidna waxa uu wataa garabyo siyaasadeed oo xoog leh maalmaha soo socda Muqdisho waa la isku hardin doonaa ololooyin kala duwan oo siyaasadeed ayaa bilaaban doona afkaarta ayaana lagu loolami doonaa xasan sheekhna waxa uu wajahi doonaa waa madaxweynaha hadda talada joogay culayska ugu badnaa ee siyaasadeed madaxweynaha talinaya dawladdiisa waxay wajahaysaa eedeymo kala duwan oo ka imaanaya bulshada oo ay ugu horeeyaan musuqmaasuq isla markaana ay ka mid yihiin dhulbo taas oo ah tan kaliya oo ay siyaasiyiinta hadda taagan kula loolamayaan faragelinta dawladaha shisheeye qaarkeed ee Soomaaliyana waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu adag ee dawladdan ay wajahi karayso maamul goboleedyada qaarkood oo dawladdan diiday inay la shaqeeyaan waa culays adag oo madaxweyne xasan sheekh hadda haysta arrinta ugu ballaaransa waxay tahay in saaxiibada siyaasadda uu hadda wato qaarkood aysan ku aragti ahayn isla markaana aysan ku qanacsanayn sida uu wax u wado su'aashusa waxay tahay madaxweyne xasan sheekh miyaanu wax ka baran xilligii Farmaajo uu isaga ahaa hormuudkii diidayay muddo kororsiga suuragal sama tahay in arrimahaasi isagoo og tan uu ku dhaqaaqo waqtiga ayaa wax badan fasiri doona Soomaaliduna waa marqaati